وحلي هبينه iyo garoonka Kigali Stadium magaalada Kigali dalka Rwanda waxa wada ciyaaraya Rayon FC oo dalka Rwanda ah iyo kooxda lagu magacaabo Atalbara ee ka dhisan dalka South Sudan waxay wada ciyaarayaan tartan ka tirsan Sakafa Kagame Cup. Hervé Rogowiro waa 24 jir u dhashay Rwanda balse hooyadiisu ay tahay hooyo u dhalatay Soomaaliya waxaana lagu magacaabaa Magan. wuxuu ka ciyaaray qaybta dhexe ee difaaca 2 July 2019 ayuu ku soo biiray kooxdan Rayon FC laakiin waqtigiisa inta badan wuxuu ku soo qaatay kooxda ABR uu ka mid ahaa muddo 6 sano ah halka uu 3 sano uu akademiyada kooxda uu ku jiray isku dar 9 sano ayuu kooxdan u ciyaarayay wuxuuna kula guuleystay koobab fara badan. hooyadiis waxay ku nooshahay gobol ka tirsan dalka Rwanda. hadda Rogowiro waxa uu leeyahay qoys wuxuu ku jiraa nolol fiican balse waa laacib ku guuleystay xil ciyaareedkii ugu dambeeyay difaaca ugu fiican horyaalka Rwanda. sidoo kale waa xidig ay ku weyn tahay Soomaalinimada balse aan Soomaali ahayn laakiin hooyadiis ay tahay Soomaali. kulan kasta oo ay ciyaarayso kooxda Hagan wuu u soo daawashatay jiray isagoo aad u dhiirigelinaya kooxda Soomaalida ee Hagan FC. Hervé Rogowiro wuxuu soo ciyaaray kooxda ABR oo ah koox xooggan oo ka dhisan dalka Rwanda wuxuu ka mid ahaa muddo 9 sano ah 6 sano oo kooxda waaweyn ku ciyaaray iyo 3 sano ka mid ah akademiyada kooxda. waa ciyaaryahan muuqaal ahaan dheer isla markaana ka ciyaara qaybta dhexe ee difaaca sidoo kale wuxuu ka ciyaari karaa afar dambe ee difaaca. hadda wuxuu ku raaxaysanayaa kooxda Rayon FC oo lagu qiimeeyay inay tahay kooxda ugu taageeraha badan Rwanda. waxa ay si weyn u xafiirtamaan kooxdiisii hore ABR marka ay Rwanda labadan koox ku kulmaan waxa lagu tilmaamaa kulankaas El Clasico sida kulankii Real iyo Barcelona. wuxuu nooga sheekay taariikhdiisii oo kooban anagoo aan weydiin noloshiisa iyo sidoo kale inta koob uu ku guuleystay iyo sidoo kale waxa uu dareemayo markuu arko koox Soomaali ah ee inuu mustaqbalka dhow rajeynayo inuu yimaado gudaha Soomaaliya. su'aasha koowaad aan ku weydiinayno waxay tahay ka waran kooxdaada Rayon FC. Rayon Sports Club waa koox weyn waa koox sidoo kale taariikhi ah hadda waan soo gudubnay waana kulankeena labaad oo aan ciyaarayno waa koox leh taariikh fara badan Allah ayaan ugu mahadcelinaynaa taas. bal wax yar inooga sheekay CV-gaaga ama taariikhdaadii oo kooban. waxaan ku dhashay dalka Rwanda waxaan jiraa 25 sano hooyadii ayaa ka soo jeeda Soomaaliya aabahayna wuxuu ka soo jeedaa halkan ee Rwanda waxaan ahay difaac waxaan haystaa shahaadada digriga Economics and Business Study intaas economics and business studies that's it. waa goormay waqtiga aad bilowday ciyaarista kubadda cagta? Okay, I started the football waxaan ka bilaabay ciyaarta kubadda cagta Capital Football Academy oo ku taala gobolka koonfureed ee Rwanda. waxaan ahaa xilligii hore mid weerar ah laakiin hadda waxaan ciyaaraa difaaca. waxaan ka soo ciyaari jiray dugsiga sare kadibna waxaan imaaday akademiyada ABR taasna waa sidaan ku helay inaan ka mid noqdo kooxda sare. waatee kooxdii ugu horeysay aad u ciyaartay kubadda cagta? I play for ABR. waxaan u ciyaaray kooxda ABR. ilaa waqtiga ayaad u ciyaaraysay kooxdaada hore ee ABR? I don't remember well but ma xasuusanayo inta aan u ciyaarayay laakiin qiyaastii waxaan dhihi karaa 9 sano 6 sano aan ka mid ahaa kooxda koowaad iyo 3 sano aan ka mid ahaa akademiyada kooxda. imise koob ayaa kula guuleysatay kooxdaada ABR? trophies. Okay, waxaan kula guuleystay 9 koob. miyaad ku hadli kartaa luqadda Soomaaliga wax yar? No, I can't try. maya iskuma dayi karo. ma inoo sheegi kartaa magaca hooyada? My mother is called Magan. hooyadii waxaa lagu magacaabaa Magan. markaad la kulanto koox Soomaali ah maxaad dareentaa? Okay, I'm feel good. waxaan dareemaa dareen aad u wanaagsan maxaa yeelay waxaan garanayaa halka ay ka soo jeedaan halkaasoo anigana aan ka soo jeedo. miyay macquul tahay inaad mar una timaado Soomaaliya? Yeah.